بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. maanta aniga ayaa warbaahinta u yeedhay. sababta aan ugu yeedhayna waxa weeyaan in aan shaaciyo in aan gebi ahaanba iska casilay xilkii iyo xubinnimadii aan ka hayay xisbiga kulmiye. runtii bulshada intay taqaana iyo intaani aqoonba waxaan doonayaa inaan u sheego inaan muddo sanada oo kasoo bilaabantay bishii March 2016 ilaa March sanadkan 2017 aan ahaa wakiilka xisbiga kulmiye ee dalka Faransiiska. xilkaasi muddada dheer aan soo waday waxaan dhaxlay waa aragnimo aad u fara badan, waxaan bartay bulsho aad u fara badan, waxaan ku xidhmay dad aad u badan. runtii waxaan jecelahay inaan marka horeba dadka faraha badan ee aan wanaagga iyo walaalnimada isku baranay aan uga mahad celiyo. intii wada shaqayntuna dhex martay iyo intii aan xilka isku baranayba waxaan leeyahay wanaaggiini iyo saaxiibtinimadiini ma ilaabi doono. mahad iyo abaal oo aan idinku hayaa si hagar la'aan tahay ay ila shaqayseen. sidoo kale waxaan jecelahay inaan cafis u fidiyo aan cafiyo dadkii intaaba hagardaamada iyo jariimada iyo jalaafada la daba taagnaa ee aan wax badan oo aan qaban karinay aan ka qaban kari weynay iyagana waxaan jecelahay inaan cafiyo. runtii xilka aan maanta ka tegay dee nolosha sunnaha nolosha ayaa ku faraya inaanad nolosha meel u taagnaan ee aad marba meel eegto. anigu waqti dheer ayaan runtii xisbiga kulmiye taageero u ahaa. sanadkaasun baan ilaahay igu samay inaan xil ka qabto. insha allahu tacaala macnaheedu ma noqon doonto markaan xilkaa kulmiye ka tago inaan gebi ahaanba siyaasadda faraqaadi doono. insha allahu meeshii aan u arko in danta dalka ku jirto ee danta dadka ku jirto ee aan wanaag bido ayaan insha allahu diga rigan doonaa. maalmaha soo socdana insha allahu aniga iyo inta iga tala qaadata ee taabacsan ee aaminsanba waxaanu ku biyo shuban doonaa meeshii aanu dan muudno ee aanu danta qaranka ka dhex aragno. run ahaantii waxaan kaloo jecelahay inaan fursadan uga faa'iidaysto. anigu ma odhanayo maanta ama beesheeda ay raacaysaa ama dad baa wax kale igu raacaya. waxaa anagu israaci doonaa haddii ilaahay ka dhigo dadka aan mabda' wadaagtanahay, dadka aanu ku walaalownay principaleska aanu ku walaalownay ee aanan tollayda ku walaaloobin. dadkaasaan isku aragtinahay, dadkaasaanu insha allahu isku meel kasoo jeesay.